مقام سر لوسو أجاز إسلامر الدول dalka Somaliland ayaa halkan oo ah howlka isha burco soo buuxdhaafiyay si ay goobjoog u ahaadaan isla markaana uga qayb galaan madasha hal abuur Cabdiqaadir Qalinle ku soo bandhigayo suugaantiisa cudub Cabdiqaadir Qalinle oo ugu horreynba halkaasi ka hadlay ayaa halkaasi ku soo bandhigay suugaantiisa kala duwan waxay maasada oranaysaa muxuu raayo dad xiray muxuu laga kala xanibay muxuu laga xeer dhigto xuduudada kala ambiyay muxuu laba aan xog iyo war iyo isu haynin xaal isaga dhigay xiriye xaal laakiin caawa waxay idinla wadaagayaa maaso waxay oranaysaa dunida qasiya hawlo bayac iyo dhib aan waayin marna diibta iyo taaha danqashiyo xanuun raaga bakar aan lahayn dhaymo iyo doog jacayl baa leh qalbiyada isdoonaya iyo koon colaad daarin ama aan dagaal oogmin ama aan la kala dayrin dibindaabyo loo geysan hadal xumi u kala duurin dad munaafaq shili gaadhin marmarbay duruuf baasi intay dabarta hawshooda dani kala kaxaysaaye siday laabtu tiri doortay qalbi waqti baa ku yiri diiday qaar ka mid ah awaanada kayga Soomaalidu degto ugu caansan dhalinyaro waayeel iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa waan Cabdiqaadir Qalinle ku bogaadiyay suugaantiisa cudub ee uu halkan ku soo bandhigay aan daayarta kula talinaya qof walba hibe Ilaahay geliyay buu leeyahay takaway mid waliba waxba ku wanaagsanaa kuwii hore qof waliba waxba ku wanaagsanaa haddaad maqashaan abwaanna waa Cabdiqaadir oo kale waayo waxaan u markhaatiya intiinaa fadhida caawa walaalkeen abwaan Cabdiqaadir Qalinle waxa weeye waa abwaan weyn markaa leeyahay daa ahaan maaha laakiin suugaantiisa markayd akhrisataan ama heesaa iyo maasooyinka uu sameeyo wuxuu la dhigi karaa abwaanada waaweyn sidoo kale intii ay noloshaasi socotay waxaa halkaasi ugu soo bandhigay ciyaaro dhaqameedka Soomaalidu caanka ku tahay